isticmaalaynaa time frame-ka weyn ayaan lacagta ku taxliilinaynaa si aan u ogaano jawiga guud ee lacagta ay ku socoto. Saad u jeedaan time frame-ka hadda aan joogno waa 1 day. Time frame-ka hadda aan joogno waa 1 day. Anaga waxaan ku trade garaynaa sida hore idinku sheegnay train line ayaan isticmaalnaa. Markii aan lacagta taxliilinta ku bilaabayna time frame weynka wuxuu naga caawinayaa inaan si sax ah aan u sawiran karno lacagaheena aan arki doono meeshii ayna geyso taxliilinteeda day ilaa iyo 1 hour baan tegi doonaa. Markii aad taxliilinta bilaabaysid waxaa loo bilaabaa qaabka noocan oo kale NZ USD baan ku hormarnay, lacagta New Zealand baan ku hormarnay. lacagta New Zealand saa u jeedid inta waxa ay kaga jirtaa almost waxay soo sameysay impulse correction. waxaan ka sugeynana waa maxay sida nidaamka ahaa impulse. marka inaan ku keenno waxaan rabaa taxliilin aan iskula keenno aan isla fiirino. Okay, train line-ka waxaan isku ogeyn in cirif ilaa iyo cirif kale la saaro. sidoo kale shuruucdiisa waxay ahayd midda koowaad iyo mid labaad ama taabasho koowaad ilaa taabasho labaad inuu ku taabto qaybta hoose ee support-ka ah. Resistance-ga sidoo kale isagana waxaa la saartaa cirifyada la isku qabtaa soo maahan. Okay, cirifkaas iyo cirifka kale inoo saar. Then waka trade line-keena saan u qurux badan yahay uu inoo saaran yahay. waka qaabkan uu nagu saaran yahay waa u jeednaa. fadlan ardayda waxaan ka codsanaynaa inay mood isa saaraan. waryaa ilaahay yaqaano. war mood isa saar ardayahow. markaad soo gelaysa taxliilinta aan wadno casharka waa duubeynaa taxliilintan inaan kula soo wadaagnaan rabnaa. marka waxaa samaynaysaa moodka isgeli. haddii kale halowdaada meesha kasoo dhexyeerayso nimanyahow isfahmada dad waaweyn aan iska dhiga insha allah. Okay, aan sii wadana taxliilinteena. waxaan saadaalin doonaa lacagta loo yaqaano New Zealand iyo USD. saad u jeedaan trade line-keeda wuxuu noo taabtay taajka koowaad, taajka labaad muusan taabanin kan saddexaad. korna wuxuu ka soo taabtay taaj koowaad ayuu soo taabtay iyo taaj labaad, mid saddexaad muusan taaban. markii 1 day-ga aan saan samayno waxaan u sikanaynaa 4 hour. time frame-ka ayaan bedelanaynaa. kadibna waxaan leenahay chartska ama waxaan leenahay reset charts aan leenahay. waa kana trade line-kaaga markaad soo sawirtid siduu u qurux badan yahay waa u jeedaa uuna kuugu update garaysan yahay. almost inta wuxuu kuu soo taabtay saad u jeedid 2 taaj ayuu kuu soo taabtay. I hope inta inaan ka wili kasii cirifka aan kasii saarnaa muhiim mar walba cirifka aan saarno. bahashaanna waxaa la iskaga qaadaa sitina leedahay kan bareeska ku tilmaamayo. kadibna last value line-ka naga qaadaysaa si ay meesha nadiif inoogu noqoto. waa u jeedaa cirifku inoo taabtay kanna muusan soo taaban soomaan. Okay, kana marka taabsiinaynaa. waa ka 2 taaj aan haysanaa 1 2. hoosna meeqaan haysanaa? hoosna waxaan haysanaa 1 oo intu inoo taabtay iyo 2 oo kan ah. 3 muusan taaban. sida shuruucda ay ahayd trade line walba dhexdiisa ama channel walba waxaa la sameeyaa channel kala ama patterns kala lagu sii dhex samaystaa soo ma ahayn balanta. Okay, patterns kala aan ku sii dhex samaysano. qaabkeen patterns-ka kale inta inoogu muuqda aan ku samaysanayna. markii aad pattern samaysanaysid waxaa muhiim ah ishaadu inay qabato patterns-ka inay ishaadu ay ku qabato. Okay, saddexdan taaj bay inoo saar. labadan taaj dambe noo saar kan naga qaad. arrowyadan aan isticmaalno. marka arrowyadan waxay inoo tilmaamayaan inta suuqa markii koowaad inuu ka booday uu ka aaday buy. sidoo kale meeshan uu ka booday uu ka aaday buy. Okay, selkii aan raadina meeqa lugo sel ayuu suuqu soo aaday. selka ugu horeeyay suuqu uu aaday waa kana colorka inooga bedel red inooga dhig. waa kaasa. Okay, arrowga kale inoo soo qabo selka kala aaway. waa kana inta sel kale lug kala ka baxda meeshaas oo qurux badan. Okay, meeshan maxaa ugu jeedaa marka waxaan xisaabsanayno waa lugaha soo taabtay trade line. ma ahan lugaha dhexda ku jiro. fiiri lugtan inta aan ka soo calaameeyay automatically intay ka baxday waa kaasa. lugta kala aaway waa tan automatically intay ka soo baxday waa inoo taabad soomaan. inta maxaa kale ku jira sel kale ku jira waa kana. iyadana intaan taabanaynaa arrowga intaan dhiganaynaa bartaas ayaan dhiganaynaa. Okay, maxaan sugeynaa marka? waxaan sugeynaa horta trade line-ka aan sii sawirano si aan u ogaano jadwalka guud ama jihada guud ee suuqa uu ku sugan yahay.
meeshan waxaa iiga muuqdo another trade line ayaa iiga muuqdo meeshaas ilaa iyo waxaan ku xireynaa cirifkan. Okay, waa ujeedaa soomaan sometimes cirifka kaas cirifkan iyo cirifkan aan saaran laba cirif baa inoo saaran soomaan. meeshan waxaa ugu jeedaa marka inta waxaa ka samaysmay janaaladii aan soo baranayno mid ka mid ah ayaa ka samaysmay kadibna trade line-ka wuu kuu soo jabsaday. markuu soo jabsaday wuu soo dhaqaaq haddana muxuu sameeyey fiiri another trade line uu kuu sameeyey waa kana inta ka calaamayso another trade line oo qurux badan uu sameeyey kadibna wuu jabsaday soomaan. marka qaab noocan oo kale ayaa la rabaa inaad u sawiratid aadna u habeysatid. okay, inta maxaa kaloo inooga muuqda inta waxaa inooga muuqdo reversalski aan rabnaa inaan raadino. reversal maxaa la lahaa waa soo baranay reversal patterniska qayb koowaad qayb labaad ayaan ku soo qaadanay double top double bottom iyo waxaan kaloo soo qaadanay kandaladii oo loo yaqaano higher test iyo lower test ascending journal iyo descending journal. waxyaalahan hadda inta inooga muuqda dhan waad u jeedaan soomaan. this is ascending journal waa kana automatically ascending journal jihadu soo kala wareejinayo sel uu soo aadinayo suuqa soomaan. another ascending journal kala inta iiga muuqdo waa kaasa. waxaa la rabaa ishaadu inay qabato patterniska ama journaliska. marka cirifkan u saar afkiisa cirifkaas. okay, hadda waa ka cirif iyo cirif waa ka wuu soo daatay. ascending journal maxaan ku dhahay jihada suuqa ayuu soo kala wareejiyaa waxaana inta badan laga helaa aan ku yiri meelaha ay ka samaysmato double topiska waa kana because of inta double top ayaa ka samaysmada aswaaya waxaan u helnay ascending journal. maskaxdaada ha furnaato waxaa la rabaa inaad wax fahantid. sidoo kale waxaan ku iri mar walba aad aragtid uu samaysmaayo ascending journal wuxuu ka samaysmaa meelaha laga helo double top waa kana intan another double top ku jira soo ma jeedid that's why uu ascending journal u samaysmay. marka double topka aad cabiranaysid waxaa isticmaali kartaa trade line-ka adoo labada lensaan iskugu qabanayo labada leen afkooda ka saarayo ayaad isticmaali kartaa. okay, sidoo kale inta waxaa inooga muuqda wax loo yaqaano double bottomkii aan soo qaadanay oo patterniska aan ku soo qaadanay. weli waxaan ku guda jirnaa taxliilintii. double bottomka maxaa la sameynayay waxaa la isku qabanaya cirif candle iyo cirifkiisa. double bottom wuxuu ka mid ahaa reversal patterniska ama waxyaalaha suuqa kala wareejiya. okay, waxaan aragnaa marka reversal inuu ahaa sax waaye. waxaan kaloo meeshan aan ugu sii jeednaa in uu meeshan aan ka aragno lower test candle-kii waa kana wax bedeli jiray lower test candle. lower test candle walba ama doji isku taga haddaa aragtid waxay sameeyaan intooda badan wax loo yaqaano reversal suuqa ayay kala wareejiyaan. waa u jeedaana u malaynaa qaabkan aan taxliilinta u sameynayo qof walba waxaa la rabaa advanced iyo intermediate-kan la hadlayaa maskaxdiina in ay furnaato aad si fiican ugu faa'iideysataan. okay, markii qaabkan aan u sameyno 4 hour baan joogaa soomaan. inta trade ma ka qaadan karaa ma ka saadaalin karaa waa ka saadaalin karaa trade-kayga waa ka qaadan karaa. okay, maxaan sel ugu soo raaci karnaa marka maxaana buy ugu soo raaci karnaa maxaan ka sugeynaa suuqan maxaana ka expect gareynaynaa suuqan. okay, asla fiirina marka qaybtan maadaama topkan uu inoo taabtay topkiisa kala aawe waa kana laba top haddii aan aragno macnaheeda maxay ahayd suuqi in uu soo aadayo sel. fiirso topki koowaad waa kana topki labaad aawe waa kana topki saddexaadna aawe waa kana triple top Allah wuxuu sameeyay touch walba uu sameeyay wuu soo dhacay suuqi haddana wuu tagay touch kale uu sameeyay haddana wuu soo dhacay. ujeedaa double topka marka muhiim maahan trade line-kaaga dheer inaad ka sugtid ama journal-kaaga dheer aad sawiratay. waxaad ku dhex arki kartaa double topka trade line-ada yaryar aad adiga sawiratay oo aad ku dhex sawiratay patterns ku sii dhex jiro sida hadda aad u jeedaan oo kale. this is waa ascending journal oo weyn oo kale. marka ascending journal-kan maxaa ku dhex jiro patternsyo badan oo ascending ah ku sii dhex jiro. sidoo kale inta maxaa ugu jeedaa double bottom haddaa maqashid maxaan ku yiraahday wuxuu u samaysmataa sida xarafka W oo kale. inta maxaa ugu jeednaa double bottom sax ah baa inta ugu jeednaa soomaan double bottom patterniski waa kana xarafkan wuxuu u egyahay fiiri waxa uu u egyahay W. markaa cabiranaysa qaabkee u cabiranaysaa waxaad soo qaadanaysaa trade line-kaaga cirifkan dambe iyo cirifkaasa isku qabanaysaa. labadan cirif markaan isku qabano maxaa loo yaqaanaa labadan cirif laba taabasho waaye soomaan. labadan taabasha waxaa loo yaqaanaa double bottom. haddii labadan taabasho kor oo kale haddana aan isku qabano trade line-kaaga soo qaado
labadan top isku qabo maxaa loo yaqaanaa double top maskaxdaada ha gasho oo si fiican u faham fiiri taabasho koowaad top koowaad iyo maxaan dhahaynaa top labaad mar walba oo aan aragno double top maxaan expect gareynaynaa waxaan expect gareynaynaa ama aan qiyaasanaynaa suuqan in uu soo kala wareegi doono uu soo aadi doono sell haddii double bottom aan aragnana double bottom haddii aan aragnana maxaan qiyaasaynaa maxaan filaynaa double bottom haddii aan aragno waxaan qiyaasaynaa suuqan in uu soo aadi doono buy double bottom haddii aan aragno kana lugta kala fiiri suuqa markii lagu leeyahay waxa uu ku dhisan yahay nature ama dabiici structure isaga u gaar waa u jeedaa Soomaan inay lugahan jin yihiin si ku ogaanaysaa waxaad isticmaalaysaa trend line ayaa isticmaalaysaa dhumucdiisa weynayso trend line kaaga la soo bax weynayso dhumucda weynay ku cabiro marka kanna ku cabir marka kala wareeji trend line kaaga la wareeji u jeedaa inay labadan lug ay jin yihiin waa istiraatiijiyada ama dabeecadda suuqa lagu yaqaano oo markii W yar iyo W weyn oo kale saameynta suuqay ku xiran tahay fiiri wax badan oo W ahan ku soo qabanaa maskaxdaada si fiican u fur waxaan ku barayo almost waxa la iskaga qaataa intaas oo lacag lagu bixiyaa qofkii yaqaana fiirso how many W baad inta ugu jeedaa si fiican u fiiri 1 2 3 isku nidaam miya marka isku saameyn miya ma isku cabir baa waa may laakiin shape shabahan Soomaan dabeecadday shabahan oo waxay isku shabahan in ay W yihiin waxay ku kala dhaceen xaalado kala duwan meelo kala duwan ayay ka kala dhaceen waa market nature structure Allah insha Allah waa baran doontaa hadda taxliilinteena aan sii wadano intaan haddii aan isla fahnay oo si fiican aad ugu jeedid 11 isoo qora qaybta group okay aan sii wadano marka New Zealand iyo US okay taxliilintan maxaa expect gareynaynaa marka maskaxdaada si fiican u fur haddii aad taqaanid reversal patterniska waxba kaama soo hoos baxayaan reversal patterniska waxyaalihii ugu muhiimsanaa waa lagu baray maxaan ku barnay double top iyo double bottom intaas hadee maskaxdaada marku save gareysan tahay suuqan ishaada qacdaada ugu horeyso 100 W ay qabanaysaa iyo 100 M ay qabanaysaa M pattern hadda inta ka soo saar haddii aan ku dhaw waxaa la rabaa isla markii inaad soo qaban kartid fiiri M pattern oo weyn waa taas hay M pattern oo yar ii soo qabo inaan ku dhaw inaa isla markii aad soo jaran kartid fiiri isla W di la dhinac kale aan kaaga soo qabto ma jeedaa hay anada M pattern soo qabadii lagu dhaw inay ishaada waxaa la rabaa ee ku qabato qaabka hadda aan u soo jaraayo kale aad u soo jartid meelo kala duwan ay ka dhacdaa qaab kala duwan ay u dhacdaa haddii M aad maqashid M waxaan ku naqaanaa double top haddii W aad maqashid W waxaan ku naqaanaa double bottom soo ma ahayn okay taxliilinteena aan sii wadano inta maxaan ugu jeednaa trade line baa noo galaya meesha another trade line intana trade line baa inoo geli kara inta sababta aan ugu sugayna another trade line maxaa waaye fiirso wuxuu gala wax loo yaqaano inta aan ku caamayo inta maxaa waaye waa cirif Soomaan iyo cirifkan ii qabo ilaa iyo cirifkaas ii qabo dhumucda iska yaray colorkana iska bedel colorka naga bedel color muuqdo aan ka dhigano okay color muuqdo aan ka dhigano okay meeshan waxa ugu jeedaa fiiri si fiican maskaxdaada u fur waxaan ku soo baray reversal patterniska waxaan ka soo baray ascending channel descending channel inta maxaa kaaga muuqdo descending channel baa ku muuqdo descending channel shuruucda lagu yaqaan maxay ahayd waa lug ku imaata markeeda hore sell kadibna waxay samaysaa correction kadibna waxay sii samaysaa ay jabsataa soo ma ahayn waa kana bal fiireed ay jabsat Soomaan waxaan ku tusaa jab haddii intaan le aad iska jarto tusaale ahaan inta naga jar xeeraan rabaa inaan ku iftiimiyo haddii intaan maskaxdaada ay la qabsato aad fahantid waxaa waaye no one oo suuqan ka hor istaagi kara inaad lacag ka samaysid qofna waxaa waaye kuguma gumaysanayo suuqan inaad lacag ka samaysid because of waxaad taqaanaa nature-ki iyo dabeecadihii suuqa lugtaan naga jar waxbaa idin tusaa si fiican u fiiriya waxaanba la soo kulanna tusaale ahaan suuq iyo bartaa maraya taxliilinteena maxaan samaynaa candlekan maxaan ku soo qabanayaa candlekan kale ku soo qabanaya
dadka qaar waxaa ku dhacdo tanoo kale ku dhacdo ma fiirinayaan baataniski ma fiirinayaan maxaa la jadwalka meesha ka socdo maxay xisaabsanayaan waxay xisaabsanayaan fiirso waxay xisaabsanayaan impulse correction impulse kale sugayaan waa sax way jirtaa laakiin hadba jadwalka iyo jihada markaa suuqa uu ku sugan yahay ayaa ku xukunto jihada markaa suuqa uu ku sugan yahay ayaa ku xukunto adu maxaa ku xukuma mar walba jihada ku xukunto Soomaan jihadan inta maxaa noo muuqato lug dheer oo maxaa muuqato inta ku muuqato fiiri lug dheer oo sala ku muuqato Soomaan muxuu galay large correction wax la ogay trade line ka kor meeqa jeer uu soo taabtay more than 3 times uu soo taabtay Soomaan 1 2 3 uu soo taabtay okay hoosna muxuu soo taabtay fiiri waa 1 2 uu sax inta maxaa ugu jeedaa marka fiiri kan dalkaas magaciis xalla reversal lower test candle Allah muxuu sameeyaa suuqu kala wareejiyaa muxuu u wareejiyaa suuqa jiha wuxuu ka dhigaa buy okay anu maxaa sameeynayaa marka targetan rabaa inaan yeesho Soomaan ha suuqan waxaan sameeynayaa maadaama lugtan uu soo sameeyay uu soo dhaqaaqo lugtan hadda ka hor suuqa ma sameeyay qaabkan naqshad noocan oo kale ma soo sameeyay ha uu soo sameeyay intuu ka soo sameeyay waa kana fiirso lugtan lug lamid ah ayuu inta ka soo dhaqaaqo waa kaas fiiri wax farqi ah ma u jeedaa waa may wuxuu ku sameeyay marka wuxuu ku sameeyay ascending general ma ku soo sameeyay ha may kuma sameeyay okay muxuu sameeyay waa kana lugtan anu maxaan ka filayaa marka lugtan lug lamid ah trade line ka mu soo taaban may trade line ka uu ka dhaxbaxa haye inta ma waxa iga xiga fiir reversal kala ma iga xiga waa maya ilaan taabasho koowaad taabasho labaad way soo maahan maxaan sugayaa taabasho saddexaad aan sugaa haye maxaan u sugaa taabasho saddexaad inuu suuqan reversal sameeyo uu buy aado okay waxaan raadinaa marka double bottom oo weyn ayaan raadinaa double bottom oo weyn oo suuqa kala wareejin karo ayaan raadinayaa okay double bottom ma u jeedaa ha waa kana double bottom ki koowaad waa kaas qaybtaas iga soo qabo inta ii dhig waa kana double bottom waa kana taabasho koowaad taabasho labaad meelahan ka gaadaya suuqa iska ma galaayo maxaan sameynayaa taabasho labaad ayaan suuqa ka gaadaya okay aan gaada marka taabashadayda labaad balmar aawi baashi tanaan iska leexino okay waa kana si fiican u fiirso maxaan gaadaynaa taabasho labaadaan gaadaynaa Soomaan taabashada labaad waxaan rabnaa inuu inoo sameeyo wax loo yaqaano double maxaan dhahnaa inuu inoo sameeyo double bottom okay fiiri taabasho labaad exactly maxaan ku idhaanay taabasho labaadaan sugayna soo kuma dhihin waa kana fiiri inta maskaxdaada waxaa la rabaa inay shaqeyso ay update ahaato okay anu maxaan soo bartay waxaan soo bartay haddii aan mar arko double bottom in suuqaas lagu sameeyo waxa loo yaqaano reversal la kala wareejiyay sidoo kale meesha reversalku uu ka dhacayo waa intee waa trade line waa qaybta supportka fiirso inta maxaa ugu jeedaa double waxaan ugu jeedaa double bottom ugu jeedaa Soomaan ha okay iga tir marka dhibicdaas maxaan kaloo inta ka arkaa fiiri hayat lower test candle ki Soomaan ha anu maxaan sameynayaa marka waa si diyaar garoobaya long position kayga aa bartaas ii dhiganay long position kayga cirifkan candle-kan korkiisa dhiganaysaa maxaad dhiganaysaa SL kaaga maxaad dhiganaysaa candle-ka waad ka soo hoos marinaysaa waxa fiican laakiin trade line-ka gadaashiisa inaad dhigatid ama candle-ka hoostiisa qaybta color-kan oo double bottom-ka uu ku sameeyo hoostiisa iska dhigo kadibna la soo simo target inteen ka dhiganaa marka that is the question target waxaan ka dhiganaa lugtan uu suuqa hore u dhaqaaqay ii soo jar inta ii dhig lug la mid ahan ka sugaa Soomaan okay lugtan uu dhaqaaqay lug la mid ahan ka sugaa okay targetka meelahan tan iigu aadi inta soo kama boodin ha targetkayga ilaa meelahaas ii dhig ilaa meelahaas oo kale ii dhig imse biyo baan ka sugaa okay targetkayga ilaa meelahaas okay enough way igu filan tahay kaaba badan boqolkaas bib ka badan adi okay markaasaan u sameysano maxaan sameynaynaa marka suuqa waa sugeynaa Soomaan okay suuqa wuxuu sameeyaan fiirino ay SL mu iga dhacab daawo
waxa isal iga dhacma u jeedaa targetkeygana wuxuu igu dhacay si nadiif ah bilaa istrube oo u jeedaan Soomaan design-ka aan u sameeyay haddii intaan aan isla fahnay oo si fiican maskaxdaada ay u gashay fadlan 11 ii soo qor intaan haddaan isla fahnay fadlan 11 ii soo qor aada u mahadsantiin okay markaan ku leeyahay patterns-ka in aad fahantid waxay ka caawinaysaa inaad suuqa sirtiisa iyo naqshadiisa aad fahantid hadda mislaynaa targetkayga almost meeqaan hela fiiri waxaan hela 109 biib oo xataa uusan igu soo laaban suuqa maxaan dhigta fiiri kandalka koowaad markaan ku leeyahay meesha waxa la dhigto waa fiiri kandal koow kan labaad kurkiisaan dhigto soo ma aan fiirso meesha uu yahay kan koowaad waa kaas midka yar aad u jeedaan waa kana kandalkan aan iska leexino kan yar waa kana kurkiisa dhigto Soomaan waxaan sugaayay kandalkan wuu dhamaaday kan inuu ku xirmo kan afkiisa kadibna intaan ka raacay ilaa intaas imsa biibaan ka helay fiiri waxaan ka helay 106 biib haddii lot fiican aad ku gashid ka badan ma u baahnid trade kale because of taxliilintaada ku soo fariisay Soomaan okay hadda maxaan sugaynaa marka maskaxdaada hadda loo baahan yahay inay shaqeyso hadda taxliilin baan sameysanaynaa maskaxdaada waxa loo baahan yahay hadda in ay shaqeyso marka naga jar waxaan dhan foohawraan waxaan dhan ku sameynaynaa Soomaan hadda maxaan sugaynaa marka suuqan bari hadduu furmo maxaan ka sugaynaa waxaan ka sugaynaa suuqan bari haddii uu furmo in uu inoo sameeyo wax loo yaqaano an other double top ma sameeyo haa iyo maya aan cabirto waxaan ku dhahay markaan cabiranayo waxaa isticmaalaysaa horizontal ray usha ay ku qoran tahay waxaa samaynaysaa afkan waxaa raadinaysaa afku aadan fiiri bahashaan iska leexi iska yaraytan dhinaca iska aadi okay aan kuu soo zoom gareeyo marka inta maxaa u jeedaa fiiri ardaygii wax bartay oo wax fahansanahay ii soo jawaabo inta maxaa u jeedaa fiiri ii soo jawaabo ardaygii wax bartay exactly dt si fiican dt double top okay روح حبيب سدا يسوع اوكي علامه استمر دبل توب كي توب 1 هي توب 2 marka saan u calaamaysto inoo soo yaray saan markaan u calaamaysto inoo yaray maxaan ku arkay foohawrkaan ku arkay Soomaan maxaa kaloo sugaa fiiri waxaan kaloo inta ugu jeedaa zoom dheh hadduu double topkan uu ku ixtiraamo waa sidii la rabay kandalkan hadda socdo gaduudka ma raacay sida kandalka kale oo gaduudka soo bixi doono ayaa raacaysa 4 sac markii ay dhamaato laakiin waxaa sugaysaa fiiri hadduu inta ku aqbali waayay waxaa qasab ah inuu inta aqbalo fiiri maskaxdaada fur inta ilaa waxaa ka muuqda top kala ka muuqda fiiri si fiican u fiiri anada top kala ka muuqda meesha Soomaan anada top kala ka muuqda meeshaas ujeeda topkan hadduu aqbali waayo waxaa la rabaa inuu inta xoogaha dhaqaaq yar inta uu ku sameeyo ilaa saan camal uu dhaqaaqo inta uu soo taabto kadibna uu ku sameeyo kandal la mid ah kandalkan inta uu ku sameeyo markuu inta saan kuugu sameeyo maxaad sugaysaa waxaad sugaysaa lug la mid ah lugta oo darta uu ka soo dhaqaaqay markuu inta kaaga soo dhaqaaqo waxaa la rabaa double top kii hore la mid ah inuu inta ka sameeyo calaamayso وجد هاد انت سلفان زنا انت دي انت انا اسلفاني فضلا 11 يسوقر انت هدا اسلفاني فضلا 11 يسوقر exactly يوسف الى سعودي عبد الستار عكاش هذا امها سنتين ارضي وناكسن باتين غير الله يجنسيه سعودي يوم انت هذا وجد هذا امها سنتين اوكي فازلا فهنا Soomaan inta qishka aan kuugu celiyo marka si fiican u fiiri hadda expectation aan wadno Soomaan okay nagay waxaan nagaysaa 1 hour ka nagaysi aan u ogaano waxaan sameynayno inay wax jiraan ay yihiin iyo in kale 4 hour ka waa caadi waa lagu sameyn karaa laakiin 1 hour ka internet aan ka sameysan kartaa it's simple hadduu inoo aqbal hadda intaan inoo sawiran almost waxa waaye waa ku guuleysanay
trade keena oo taxliilinteena aad u wanaagsan tahay ay maxaan idin iraahdo fiiri meesha kale aan ka sugi doono waa maxay waa bartaas fiiri inta waa meesha hadda gaatinta ugu jirta Soomaan meeshan labadan meel waa labada meel aan ka gaadeen fallaarta inaga tirbal ay tanna inaga tir aan ku ceshano waxaan joognaa 1 hour kii aan joognaa maxaan ku iraahday meeshan hadda aan joogno maxaan sameynaynaa waxaan ku sameynaa fiirso waxa ii galay si confirmation sax ah aan helo trade line kala inta ii galay fiiri bartaasaan ka qaadanaa another trade line aan bartaan ka qabsanaa ilaa iyo intaasaan dhiganaa waxaan ku soo xiraa ilaa touchkaas laba touch aan ku soo xiraa soo ma jeedid meeshan trade line kan waxaan sugaa intuu ka soo jabsanayo confirmation inaan helaan rabaa Soomaan waxaan sugayaa intuu ka soo jabsanayo entry aan rabaa inaan qaato Soomaan hadda waxaan u jeedaa almost inuu uusan soo taabanin waa u jeedaa Soomaan ilaan taabashadan waa taabashadii koobaad waxaan sugayaa taabasho labaad oo sax ah oo nadiif ah oo tan oo kale ama taabto waa may kan hadda soo socdo bullback-tana soo taabanayso haddii bullback-tan ay soo taabato oo barta hadda socdo inta uu noo gaaro waa sidii aan rabnay qofkii qaadanayo risk entry-ga inta ayuu wuxuu soo dhigan karaa entry-giisa ayuu inta soo dhigan karaa short position ilaa iyo wuxuu soo qaadan karaa bartaas uu soo qaadan karaa wala socon karaa isleeyna had 36 pip wuxuu ka sarmarinayaa double top-ki oo looga shakisnaa inuu soo gaaray even hadduu noqdo suuqa inuu kugu soo laabto oo inta imaado hadday ku noqon weysay waxba suuqa ha ku degdegin waxa loo baahan yahay sugitaanka waxa uu ka mid yahay trade-ka qaybtiisa waa trade gareyn suuqa la trade gareynayo qayb ka mid ah waa inaad iska sugtaa waxaan sugaynaa ilaa uu naga aqbalayo ruliskeena oo ah in uu inta naga siiyo double top oo kadibna aan hoos u soo raacno lacagta aan taxliilinayno waa lacagte waa NZD USD isla faana Soomaan inta waxa ka haysanaa 1 toban ka haysanaa inta waa hadii uu inoo aqbalo insha Allah oo saan ka rajeynayna Ilaahay idinkiis ay inoo noqoto inta waxaan ka haysanaa 1 top another top kale waxaan ka sugeynaa bartaasaan ka sugeynaa inuu soo taabto kadib miska galeena ma galeeno waxaan sugeynaa ilaa uu inooga soo jabsado trade line-ka markuu soo jabsado candle-ka koowaad kan labaadan ka raaceynaa candle-ka koowaad kan labaadan ka raaceynaa intaan dhiganayna short position kaygan soo qaadana candle-ka koowaad markuu soo jabsado kan labaad meelahaas uu ku aadan yahay meelahaasaan dhiganaa waxaan ka sara marinayaa stop loss-kayga labada candle-aan ka sara marinayaa labadan candle okay 30kaas bip ilaa inteen qaadanaya ilaa iyo waxaan qaadanayaa meeshan entry-ga meeshaasaan ka dhiganayaa meeshaas TB1 hadii kale waxaa ka dhigan kartaa TB2 waa ka dhigan kartaa it's simple inta waxaa ka dhigan kartaa TB1 kaaga waa ka dhigan kartaa sidoo kale hadii aad iska gaabagaabay aad tahay waxaa ka dhigan kartaa intaan TB1 almost waa ka dhigan kartaa meeshan kan iska tur TB2 na ilaa inta waa ka soo dhigan kartaa not big deal TB3 na ilaa qaybtaas waa deysan kartaa bal hadda misla faahna saadaalinteena laba meelba waan ka soo raaci karnaa inta waa ka soo raaci karnaa oo waxaa loo yaqaanaa reduce risk entry Allah markuu soo jabsado trade line ayaan bartaas ka soo raacayaa sababtoo trade-kan waa huwa inuu sal soo aadayo because of wuxuu waafaqay rules-kayga oo wuxuu jabsaday trade line-kaygu jabsaday ama waxaan sameyn karaa waxaan ka soo qaadan karaa double top-kan marka uu soo sameeyo double top-kaas marka uu soo sameeyo ayaan ka soo qaadan karaa bartaasaan soo dhiganayaa waxaa la kan risk entry Allah risk entry waxaan sugayaa hadda wuxuu ku socdaa buy stop aan ku galayaa waxaan ku galayaa cafan sell limit aan ku galayaa buy ku socdaa meelahaas markuu gaaro waxaan leeyahay sell ii soo raaci TB-gaygana waxaan dhiganayaa inta SL-kaygana 36daas B baan u deynayaa waxaan ka sara marinayaa candle-kan anoo fiirinayo inta inay wax kale iga jiraan marka waa qaabkaas intaan haddaan isla fahnay fadlan 11 ii soo qor idinka mahadsan 11 ina soo qor lacagtii koowaad saana ugu dhamaanay